marka waxaan rabaa in aan runtii idinku soo noqnoqdo oo aan saaro muhiimaddeeda koowaad sidaan horey u sheegay in ummadda Soomaaliyeed ay meeshan ugu yimaadaan cadaalad aysan ka cararin. wuxuu ballan qaaday inuu tayeyn doono una xoojin doono hanaanka cadaaladda iyo awoodda sharciga kadibna dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay bilowday in dib u eegis ay ku samayso nidaamka cadaaladda 2 sano oo uu xilka hayay isbedel weyn ayaa ka muuqda hay'adaha garsoorka sida maxkamadda sare iyo maxkamadaha gobolka kadib dib u eegistii lagu sameeyay dib u eegista cadaaladda ee uu ballan qaaday madaxweyne Farmaajo kuma koobnayn oo kaliya maxkamadaha waxa qayb ka ahaa in la ilaaliyo oo la daryeelo xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed ee maxbuuska ah kaas oo xaq u leh inuu helo nolol wanaagsan madaxweynaha ayaa tiro 2 jeer booqday xabsiga dhexe ee ay ku xirnaayeen maxaabiistu si uu ugu kuurgalo xaaladda ay ku sugan yihiin markii uu xilka hayay waqti koobanna waxa uu guddi u saaray soo qiimeynta xaaladda maxaabiista natiijadii qiimeynta guddiga ka soo baxday waa inagii wada xasuusana oo waxa laga sii daayay xabsiga muwaadiniin loo arkayay inaysan helin cadaalad waxaan anigu aan markhaati ka ahay in aan soo deynay sanadkii la soo dhaafay 140 iyo xoogaa 150 dhalinyaro gaaris oo qaarkood ku xirnaa 5 sano iyo 6 sano waxay u xirnaayeen ay tahay runtii wax aad iyo aad ama qaarkoodna ay dhamaadeen waxaan ku raahdaa muddadii la siiyay dhamaadeen oo weli sii xiran dambigeeda yaa qaaday marka qofkaas muwaadinka Soomaaliyeed ah oo dhiban markii hore dhib buu galay waa la xukumay waa dhameystay waqtigiisii weli waa sii xiran dhinaca kale qiimeyntaasi waxa lagu ogaaday in maxaabiistu ay u baahan yihiin goob munaasib ah oo lagu hayo taas oo keentay in dawladdu ay dardargeliso dhismaha xabsi weyn oo tayadiisu sareyso ugu dambeyntii waxa xariga laga jaray dhismaha xabsiga oo ah mid la mid ah xabsiyada wadamada adduunka ee horumaray xabsigan ayaa laga dhisay ex-control Afgooye waxaana u dhammaan adeegyadii loogu talagalay laamaha garsoorka ayaa sidoo kale xarun ku leh xabsigan oo ah mid si cajiib loo dhisay waxa uu bedeli doonaa xabsigii dhexe ee ku yaalay degmada Xamar Jajab kaas oo muddo badan soo shaqeynayay maxaabiistii ugu horeysay ayaa la dejiyay xabsiga maxaabiistu waxay heli doonaan xaquuq sare hoy casri ah raashin tayo leh iyo waxbarasho waa talaabo wax weyn ka bedeli doonta nolosha maxaabiista Soomaaliyeed mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaha asluubta Kambooliska iyo xeryaalaha qaranka ayaa booqday xabsiga si ay goobjoog uga noqdaan furitaanka xabsiga waa kan sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac taliyaha ciidamada asluubta oo ka hadlaya furitaanka xabsiga iyo heerarkii uu soo maray munaasabadan oo uu ku howlgalayo maanta xabsiga guud ee Muqdisho xabsigaas oo juhd weyn iyo howl badan la soo galiyay anagu marka in badan baan warbixin ka bixinay in badan baan ka hadalnay min maalinta la dhaxeeyay maantay sharaf waxaan noo ah maantayto inuu gudoomiyihii gobolka ahna duqa magaalada uu nala joogo dadka xabsiga soo galaya ama lagu soo xirayana ay yihiin bulshadiisii uu asagu mas'uulka ka ahaa iyo marka wixii uu soo kordhay iyo qaybta iyo caasimadda doorka uu ka qaadanayo gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Yariisow ayaa ballan qaaday in gobolka Banaadir uu dhameystiri doono adeegyada kale ee ka dhiman xabsiga si maxaabiistu ay u noqdaan kuwa haysta nolol dhameystiran runtii waa u jeedaan maanta waxa sharaf weyn Soomaaliya u ah in xabsiga guud ee Muqdisho oo juhdiga badan la geliyay sida casriga ah loo dhisay ahna xabsiyada ugu casrisan geeska Afrika in maanta howlgalay maxaabiistii ugu horeysay halkan la keenay indhiina ku soo aragteen sida taliyaha asluubta iyo dhammaan cid walba kaalin ka qaadatay xeelalaha guud iyo madaxda qarankaba juhdiga weyn ee la geliyay in muwaadinka Soomaaliyeed ee xabsiga ku jiro uu helo xuquuq la mid ah muwaadiniinta kale ee u noqoto xabsigu meel lagu tababaro u noqoto meel uu ku noqdo muwaadin dhab ah hadhow xabsiga markuu dhameystana uu kaalin weyn ka qaato horumarka dalka xabsigan weyn oo kilomitir 7 ku yaala oo runtii adkaysaan magaaladan inay faaftay magaaladii horumar weyn ka jiro waxay calaamad weyn u tahay horumarka ballaaran ee dalka ka jira gaar ahaan caasimadda waxay marqaati ka tahay dawladda federaalka oo soo jeesatay muwaadiniinteedii inay xuquuqdooda aasaasiga ay ilaaliyaan ama ha noqdo qof xabsi ku jiro waad ogtihiino xeer ilaaliyaha iyo mas'uuliyiin kale u tageen dibadaha
maxaabiistii ku jirtay waddamada kale adduunkana dib waddankooda loogu soo celiyey si waalidiintooda iyo qoysaskooda ula joogaan. waad aragtaan dowladdii shacabka oo u taagan in shacabkii la daryeelo. taas waxaan rabnaa in shacabka Soomaaliyeed meel walba joogo ogaado juhdigan iyo muxuu ahaa fikirkan iyo xoolahan la gelinayaba inay tahay muwaadin Soomaaliyeed inuu noqdo muwaadin wadani ah daacad ah ummaddiisa u adeega isla markaana kaalin ka qaata horumarka dalka. intaas ka sokow xabsigan guud magaalada Muqdisho waxaan rabnaa inuu tusaale u noqdo wadamada Afrika halkan ay yimaadaan ee ogaadaan in Soomaaliya sida maxaabiisteeda xuquuqdooda u ilaalinayso ay noqoto wax caalamka oo dhan lagu daydo. intaas ka sokow muddo waxaa socotay barnaamijkiisa xilqaan oo runtii madaxweynaha jamhuuriyadda ku dhawaaqay ujeeddada taa bulshada isku tashato wax isla qabato. waxa kaloo iyadana halkan lagu soo tusay in dhismaheeduna socdaa goob ama xarun oo xafiisyo iyo masaajid oo runtii dhallinyaradeenni dhaqan celin loogu sameynayo. taas taliyaha wuxuu noo sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay kaalin ka qaateen oo aan hal shilin ka imaanin dibadda. taasna waxayna tusaysaa sida ummaddu maanta ay heeganka ugu yihiin inay kaalintooda ka qaataan. marka waxaan rabnaa ama xabsiga guud ha noqoto ama xaruntan ha noqoto ama si allaale sidii muwaadiniinteenna aan u gargaari lahaynna waa waxna looga fadhiyo inaan isku tashanno in maxaabiistaas qol walba loo gelin doono telefishin si ay bacdama sariiro loo helay goobo ku habboon oo muwaadiniintaas xuquuqdooda lagu ilaalinayo. haddana inta ka dhimayna u istaagno kaalin weyn ka qaadano arrimaha wacyigelinta ha noqoto si telefishinno loogu keeno caalamka iyo horumarka dalkooda ka socda ayaga naftikooda u arkaan madaxda fariimahooda u dhageystaan isla markaana ay u noqdaan dad runtii muwaadiniin ah oo waddankooda jecel. furitaanka xabsigan weyn ayaa sidoo kale ah fursad meesha ka saaraysa in muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu hayo xabsiyo shisheeye iyadoo kalsooni xumo lagu qabo tayada iyo nolosha xabsiyada dalkeena.